waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay dariska yihiin qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horaanta qarnigii 19 waa 1800 iyo guyaashii ka dambeeyey inay jireen rag Soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sudcaalay muddo ku maqnaa ha yeeshee siday maanta arrinay tahay tiradii waayadaas dhoofi jirtay ma badnayn nin baa la oran jiray hebel badda ayuu qabtay ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana warar badan lagama heli jirin saa qalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin wixii jirayna lama wada haysana halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowra oo in laga jawaabaa ay gar tahay weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray halkeese loo dhoofi jiray tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaani ma ka hadhay hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo micinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee Soomaalida naga soo gaaray meel walba oo dalka ka mida in laga dhoofaa suuragal ma ahayn marka hore inta ninku miyiga ka tago ayuu u sodcaali jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi kuwa waqooyi bari Jabuuti iyo badweynta Hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala Soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah Saylac, Bullaxaar, Berbera, Laasqore, Qandara, Caluule, Bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen doonihii sharaaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah kusoo xidhan jirtay dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas qudhooda laga shaqaalaysiin jiray meelaha ay sodcaalka ku tegi jireen waxay u badnaayeen dalalka carabta ee dariska la yahay sida magaalooyinka Cadan iyo Xudayda oo Yaman ah dagaamadii Xijaaz la oran jiray ee dalka Sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday Salaala iyo Dufaar oo koonfurta Omaan ah Sanjabaar iyo dagaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga Afrikada bari bariya dambe ayaa naaquudayaal reer bari ahi waxay ku dhiiradeen inay fogaadaano ilaa Afrika Hindiga ay ganacsi awgiis doomahooda yaryar ugu gooshaan maxaa haddaba ugu wacnaa oo Soomaalidii waagaasi ay dibadaha ugu dhoofi jirtay sidaan isleeyahay dhowr sababood mid ahaan ayaa ugu wacnaa kow waa xoogsi waa nin inta qoladiisa ay qolo kale ku soo duushay geeli ka dhacday dabadeedna is arkay isaga oo cayl fara madow ah dhulkii uu ku barbaarayna aanay nololi u ool ninka labaadi waa colaad dheeraatay darteed nin dalka uga caymaday kadib markuu ka baqay in la dilo ama dagaalada uu ku naafoobo ama si kaleba ay waxyeelo uga soo gaadho ninka saddexaadna wuxuu ahaa gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama turjubaan u noqday sidaasna qurbaha ku tegey taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon karaa 1839 markuu Ingiriisku Cadan qabsanayay turjubaankii Soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga Hindiya kala yimid
iyaga iyo carabtana u kala af celin jiray. ninkaas oo Ismaaciil mooye inaayihiisa aanan helin wuxuu ku hadli jiray baa la yidhi Soomaaliga mooye afafka Ingiriiska, Hindiga iyo Carabiga dalkaba. malahaygana isaga ayaa ugu horeeyey amaba ugu caansanaa turjubaanadii Soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qarnigii 19aad gumaysiga iyo maamuladiisii ka xoogsan jiray. raggii Soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofi jiray marnaba ujeedadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan, ku ilmo dhalaan, ku gaboobaan nolosha lifaadoon ee meelaha taalana ay keligood ku naaloodaan. danta qura ee ay lahaayeen waxay ahayd inta ka soo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan, markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan. dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo darteed loo burburo ay bulshadu ogolayd, maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada. sidaa darteed baa nin kale loo hormarin jiray oo halhaleel taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuuyeyn. isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan. ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray. qurbajooggii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu allah u naxariistay ahaa Cumar Xuseen gabyaagii la oran jiray ee inuu geel tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray. 1910 hortoodii ayuu Cumar noqday askari Ingiriis